ciyaar waxa ugu weyn Barcelona rajo weyn kala hayd inay qaadato Harry Kane ayaa hadda waxa jira wada hadallo u dhaxeeya Munchen iyo Harry Kane oo ah heshiis kordhin heshiiskiisu wuxuu dhacayaa 2027 ayuu dhacayaa Barca ninkan Roberto Lewandowski ay rabeen inay bedel ka dhigtaan laakiin hadda waxay u muuqataa in ninkan uu ku haysto Jarmalka heshiiskiisa ninkan waxa lagu xiray hadii uu ma taqaana baxay xaqiiqa soo socda in kaliya uu ku bixi doono lacag dhan 56 milyan laakiin waa in uu sheegaa intaysan bishan dhamaan January uu yiraahdaa anu xaqiiqa dambe waan baxayaa marka hadduu sidaas yiraahdo xaqiiqa dambe 56 milyan baa lagu qaadanayaa marka kooxo badan waxay arkayaan ninkan raqiis uu yahay lacagtiisa waa ninka zaidka laacibka ah marka Bayern Munich Saudi waxay bilaabeen wada hadal heshiis kordhin ah ay sheegeen inay la bilaabeen Mr Harry Kane dad badan waxay filayeen Premier League ku soo laaban doono sababta ku aadan rikoorka Alan Shearer oo taariikhda ninka ugu goolasho Premier League oo dhaliyay 260 gool inuu u soo laabto uu rikoorkaas jibiyo hadda 47 gool uu ninkaas ka dambeeya Tottenham baana xiiseynayay laakiin Harry Kane wuxuu sheegay inuu ku faraxsan yahay halkaas aruurtiisu ku faraxsan yihiin nolosha guulaha ku dhisan ee Jarmalku aad ugu haysto waqtigiisa Munchen wuxuu dhaliyay 119 gool 126 ciyaarood 34 gool dhaliyay 30 ciyaarood oo season kan marka Kane ka hor markan inta soo Munchen iman koob la'aan buu ahaa laakiin sanadii la soo dhaafay koob ayuu ku guuleysanayay season kan xataa sidii dhibcood Real ku hogaaminayaan Jarmalka bay wali ku tartamayaan already Champions League bay u soo baxeen knockout stage-ka marka Harry Kane waxa ta suurtagala in Bayern Munich hada wadal ula galayaan ninka kan si lacagta lagu fasaxayo loo sii kordhiyo hadduu yiraahdo xaga dambe waan baxaya xitaa in la yiraahdo 56 milyan lacag ma ahan adiga Kane dhana tahay marka heshiiskan cusub wuxuu marka Munchen ka caawin doonaa xataa hadduu xaga dambe yiraahdo waan baxaya Harry in lacagta 56 milyan ay kordho ugu yaraan 80 milyan iyo 90 la geeyo ay noqon doontaa laakiin iminku Harry wuxuu u badan tahay baa runtii sii joogi doono Bayern Munchen heshiiskan u kordhi doono taas waa ta marka Barcelona waxay war ku sheegayaan in xaga dambe u soo hareen inay qaataan midkood Julian Alvarez oo Atletico jooga iyo Dusan Vlahovic oo Juventus jooga labada nin ayaa target u habaal gulay runtii oo ay ku bedelan doonaan xataa yarkii waa ka tagay Doro heshiis 2003 buu siixay kooxda kubadda cagta ee Paris Saint-Germain kulli Laporta iyo Khalifa waxa laga arkayaa in xiriirkoodu uu aad u fiican yahay laakiin xiriirka maana Bayern Munich يعني nimanka xoog yani biish wax laga qaban karo meeshii soo gala waxbay ka keenayaan marka yarkii waa kala soo bandhigay Stergana kunkii ugu horeeyay Giron ayuu ciyaaray kooxda kubadda cagta Giron marka isaguna amaah baa lagu fasaxay haday dhacdo in Barcelona ka hor imaado Giron markaas 300 kun ka badan bay isbuuci bixin yani 300 kun ay ciyaarta isku bixin doonaan si ninkan ugu ciyaaro marka waxaan suurtagal ahayn inuu kooxdiisa ka hor imaanayo ilaan Giron iyo Barcelona magaalada ka wada Catalonia way ka dhisan yihiin markuu adag tahay in ragga ay u fasaxaan ninka ka taawada nimanku Arsenal la yiraahdo labadan bir shock baa lagu furay tan iyo guuldaradii meed ka soo gaartay madaxa xanuunaya hadan reer faanaya ka sii badiyay madaxa kala jaban wax weeyaan saacadii ugu dambeeyay dhowr baahinta falanqeeyayaasha cid walba waxay lahaayeen Arsenal waa baqday Arsenal waa argagaxday taasna waxay u keenay doontaa waa la lahaa in horyaalka ay ku waayi doonaan marka waxyaabo badan ba Arsenal laga sheegay waxa la fashilay weerarkooda in wax ku tiirsaneen oo 13 ciyaar buu haysta gool aan yahay ciyaaryahanada goolkii ka guuray taas waxa loo aaneeyay in ragga waaweynba gool hadaynu haynba kulmada waaweynka ya in Arsenal ayaan sida horyal ku qaadayn taageerayaasha ku oriyaan ciyaartooyga waxa la sheegay Arsenal in saacadan ay ka dhex kacdo taageerayaasha ciyaartooyga inay keeni doonaan ama keeni doonto Marso in nimankan cabsi darteed horyaalka ay sii wadi waayaan adiga waxyaabo badan ba Arsenal laga yiri oo laga sheegay ciyaartooyga hore waxay ugu baaqeen Arsenal in Bruni free ku dhisanay ciyaaraan fulinimada ay joojiyaan isxayirayaan Bruni cabsilaan ciyaar baa lagu leeyahay runtii Arsene Wenger wuxuu sheegay Arsenal in Bruni khajjac ay dhalinayso laakiin Man United ay dhalinayso gool qurux badan way ka fiicnaayeen kooxda kubadda cagta Arsenal waxa soo dhan laakiin super computer still wuxuu yiraahdaa Arsenal baa geed ku qaadaysa balse waxa oo dhan falanqeeyaal warbaahin gabi ahaanba Arsenal waxa weeyaan waxay cadeynayeen in wajigan ay horyal ku qaadi karin sidoo kale Odegaard wuxuu yiri xasuusaheeni hore baan dhaawacaya yani sanado badan bay Arsenal guul dareysteen horyaalka qaadi waayeen iyagoo saan u horeeya marka wuxuu leeyahay waxa maskaxda nooga taagan wixii la soo dhaafay yaa madaxa nooga taagan oo ah waqtiyo inagoo horeeyay in laga qaadi koobka laakiin saacadii ugu dambeeyay Ferdinand ayaa sheegay hal sabab uu san horyaalka Arsenal ku qaadi karto ma ahan sabab inay xoog badan tahay laakiin waxa weeyaan sabab kooxaha la tartamay Arsenal inay jaanis siinayaan inay jiifaan wana sababta markastan ku dhaho
waxaan diray Manchester City iyo kooxahan kale arkayo tabar badan ma hayaan Arsenal shay wax dhaama la waa niman yahow Arsenal marka sanadkan awood Champions ku noqdaan ma laha laakiin hal sabab ay ku qaadayaan waa kooxo kale oo guulooda joogteen karin bal ka war hadii maanta City ay City hor ahaan lahayd ya Arsenal waa horyaalkan waa laga qaadi lahaa hubaal beed waa laga qaadi lahaa laakiin hadda Arsenal oo arkay inay xun tahay oo ay zero tahay oo Brunigas lagu ciyaaray oo fulinimo ay ka muuqato oo weerkoodu wax aanu dhalinaynin ya hatta Jamie Carragher wuxuu mataqaana waxaan la yaabana uu leeyahay runtii kooxda sanadka marka yani la soo qaadanayo kooxda horyaalka qaadata horyaalku qaada waxa kaga jiri jiray weeriyahano laakiin Arsenal waxay noqonaysaa wari kooxda hadii xataa horyaalku qaado weerarkeeda aan ku jirin kooxda sanadka yani horyaalka ya koox u qaada mataqaana weerarka u qaada Haaland baa la qaaday horyaalka Premier League Man City Mohamed Salah baa la qaaday Liverpool horyaalka Premier League kan kii ka horeeyba Hazard baa la qaaday Chelsea oo dhalis fiican siin jiray bariga ka marka wuxuu leeyahay nimankan waa niman Champions inay noqdaan raba haddana aan lahayn dhaliyaal farta ka xiran superstar weyn aan lahayn oo ciyaaruhu go'aamiya aan lahayn buu ku leeyahay runtii waxa la arki doonaa ku leeyahay runtii kooxda sanadka marka la xulayo markii ugu horeyso waxaad arki doontaa kooxda horyaalku qaaday oo aan weeriyaan kaga jirinba maxay la afka hore Arsenal dhanba waa ku wajijiifa marka Arsenal hal soo bis horyaalkan ku qaadi kartaa marka waa kooxu kale oo jiifa waa kooxu kale oo zero ah hada Man City u jeedid daacadii sida laga reebo ma Arsenal waa had afar cud milo jira waxa arki doontaa Man City hada marka la ku faysa dabeecadahaas baa marka caawinay Arsenal horyaalka inay qaado mooyaane Arsenal awood lagu ma oga kooxu la tartamaya Arsenal yaanan wali fit ahayn yaanan joogteen karin guulaha sababta marka Arsenal kooxu la tartamay inay zero yihiin ba Arsenal ka caawinaysa farxadeedu waxay tahay dadka la tartamaya dad jiran waa iyaga xataa jiroloyaal waa ash ma ahan caafimaad ma qaba Arsenal ma fiicna haddana saas ay tahay horyaalka hogaankii u hayaan way ma fahmi kartiin buu leeyahay runtii maxay la kooxu kale ba si xun u ciyaaraya kooxu kale ka jabanta uu leeyahay runtii macnuhu xataa haday Arsenal dhibco lumiso haday xataa baraajo gasho hadii laga badiyo ya still horyaalku ku guuleysanayaan sababta ku aadan kooxaha kale sida City Chelsea United Liverpool ayaan ma taqaan iyana macnaha ciyaarihi ka daba ku faya wuxuu kala jeedaa Arsenal dhibco way lumiyaan ciyaaru baa laga badiyaa baraajo galaan isbuuc kasta Arsenal ma badiso khalaad bay sameeyay Arsenal kooxaha Janis si laha laakiin kooxii Janis kale siinay sida City oo kale ayaanu badinin ka daba ku faya Arsenal marka Arsenal waxay marka nasiib ku leedahay ku leeyahay runtii sanadka kan waxay u tahay sanad horyaalku ay ku qaadayaan fursad ay siinayaan kooxo kale rabta inaad Champions noqoto wayna isbuuc kasta xoog badnaataa laga arkay inaad guuleysan karto awoodada banaanka ay taala laakiin Arsenal hadda uma arkay ninka kan in leedahay level koox Champions noqon karta balse halkan nasiib Arsenal sanadkan haystaan wax weeyaan kooxo la tartamay ayana zero wana hubaal arintaas waliba Arsenal sanadka kan horyaalkan wali way qaadi kartaa waxaan u qaadi doontaa u fiirsaday sababta tan waa nimankan kale oo zero wardaacada aragto horyaalka kan Arsenal maalinta ku fayso hadda aniga garansiyo kuma siin kara Citydan aad arkay maalin kasta inay badin karto ma aaminsani waxaas wuxuu kale Maxamed dhahay ma aha waa waxa tay dhahayaan ciyaartooyga hore kubadda cagta soo ciyaari jiray waa wax la arkayo muuqda Arsenal marka sanadka kan xataa horyaalkan qaadayso waxay ku qaadaysaa sababta kooxaha ka soo horjeedo zero laakiin Liverpool sidoo soo markay horyaalku qaadaysay awood bay leedahay daacadii kooxo kale iska dhaawacmaan laakiin Liverpool awood banaanka tale ku socotay Liverpool saacadahan markii la siimaray goormeed baldagaysan ka hadlinay laakiin Arsenal awoodaas Liverpool sanadka la soo dhaafay leeyahay malaha ugu yaraan hadda Man City u jeedid bari hadan ku fidoontaa marka Arsenal yaa ish dhaha qabanaya cid qabanaysa malaha Arsenal dal alla kuftara Man City waa ka daba ku faysaa marka ma ahan Man City oo nimankan intay qabtaan dhaafi jiray ma aha marka ninkan wuxuu ku leeyahay Arsenal kooxu la tartamaya yaa liita sida Manchester City oo kale uu ku leeyahay runtii mid kale waa nimanka adduunyo midaan ka dhiganaya feri koornada waxa laga dhigaa cariiri dadkii dhan jamal ugu fura balfiri warwa waa ku milmayaan aan ku rid sida sokorta iyo biyaha isugu milmaan oo kale yaa saasay ugu milmayaan meel balfiri waxaan day waa dad nolol ka dhigti waa inay saa adduunyo ku dhaqaan nimanka siisaka waxa weeyaan la yiri armay horyal ku qaadaan kubadahan geeska laadka iyo angol kooxu iska dhalayaano marka taas waa taa mid kale Ferdinand wuxuu cambaari Rokin waa sababtan idhahay dagaalka labada qof u dhaxeeya maaha in cadaalad darro lagu hadlo haddii xataa qofku falanqeeyo uu yahay saacadu may waa tuuray ku yiri xataa haduu ciyaaruhu horyaalka siisa kan wada badiyo kooxda Jamhuriga ku soo saaro Michael Carrick maahan waxa dambe macaanka United laga dhigo
macna United waa inay u dhibata macalin weyn laakiin Ferdinand wuxuu midaa waxaweyaan burmidaas cadaalad ma ahan Carrick haddii xataa season kan uu wacdareeyo inaan tababar laga dhigin waa ixtiraam darabo uu ku tilmaamay yani Ferdinand wuxuu difaacay Michael Carrick oo ka soo horjeeda Roy Keane ninka kan 12 sano soo dhaafay laba macalin baa oo United baa ku soo baday garoonka Arsenal waxay ahaayeen Mourinho iyo Michael Carrick waan ogtay Michael Carrick markuu tababarnimada bilaabayay barashadeeda isagoo ciyaartooy bilaabay sida Arteta oo kale Arteta Arsene Wenger ku hoos bilaabay isagoo ciyaartooy yuuna yani si baranay tababarnimada kana Mourinho ku hoos bilaabayo marka labadooda baa ahaa taasna waa taa ilaa hadda Joao Pedro ayaa ciyaaryahankiisa kan ku lug leh Premier League saxiixdiisa kan la soo saxiixday goolasho ugu badan ku lug leh Premier League wuxuu ku lug leeyahay 12 gool yani saxiixdiisa kan la soo saxiixday Premier League la keensaday hadda Joao Pedro ugu khatar badan maalooda ka tikay ugu fiicnaa baraha madax jari iyo timajaashu ku mashquulay maalin kasta timo dhinac ka sameeyo 6 la soo dhaaf 5 jeer oo madaxiisa bedelay ka tikay 10 buu ku lug leeyahay Yogeres 5 isna Sesko isna 5 buu ku lug leeyahay runtii marka waxa weeyaan ciyaaryahanada goolasho ugu badan ku lug leh raggan waxa ugu horeeya kan Chelsea ay soo gadatay taasuna waa taa mid kale Chelsea dib waxay ugu wactay laacib ka jiray Borussia Dortmund ismaan wiilka wiil yar weeyaan la wacdi doono wallaha Dortmund waa ku haysatay oo ciyaarsiinaysay laakiin Chelsea waxay rabaan inay kan back up ka dhigtaan hadii difaaciyo problem uu ka soo galo wiilkii dib ay ugu yeerteen wiilkii waxa weeyaan iyo Borussia Dortmund waxa weeyaan waa isku korooyeen ciyaartoygooda sababtoo ah wiilku wuxuu islaha Borussia sii joogi doontaa 10 ciyaar buu xataa u ciyaaray Dortmund uu ku faraxsanaa Champions League xataa uu ciyaaray hadda xataa intuusan u wareegin Chelsea ku laaban kulanka Inter buu ciyaari doonaa toddobaadkan wareeca Champions League ma jireede Champions League ma jirida xalay dhanba ku kor wareer waxa Champions League cabada jiray ma ahan habeen dhanba la isugu kuusay wixii oo dhanba oo la wada geeyay waxa dhanba ciyaarba Barcelona Real Madrid Manchester City waayahay Arsenal way dadkii hal mar la wada geeyay marka wiilka marka halka buu dib ugu laabanaya Borussia Dortmund kuma farxin in ciyaaryahanka dib looga ceshto ilaa amaah ku ahaa dhaawac suuliba ka dhaawacay ciyaaryahan baa ka dhaawacan marka wax weeyaan isku ooyeen kooxdiisii marka uu ka tagay marka Chelsea ku laabanaya kaasata Chelsea waa ka deeri weysay Liverpool sisakan form xumad haysata ma la yaabis Saud waxa la lahaa Alonso inuu tababar hadda xataa Liverpool noqonayo iyagu xaga dambe Ibrahimba hadii slot natiijada uu bedeli waayo slot waa ka taala Liverpool xaga la soo markay James noqon Real ku qaadaysay xilligan kale waxay haysteen 56 dhibcood haddana xilligan kale waxay haystaan xilligaas kale waxay haystaan 36 dhibcood marka xaga la soo dhaafay 56 dhibcood haysteen markay James noqonayeen haddana waxay haystaan 36 dhibcood marka siiskan bay aad u liitaan taasna waa taa Madrid Rodrigo ba u soo laabtay kulanka Champions League inuu ciyaari waa laga yaabaa isbuuc dambe uu ciyaari doono Realka laakiin Militao wali ma soo laaban waxayna toddobaadka markii ugu horeysay Madrid ciyaar ay badiso la'aanta Tchouaméni oo lana ku soo bilaaway ciyaartii Villarreal dhinaca kale waxa weeyaan Madrid iyo Barcelona sanadii ugu dambeeyay macallimiin badan bay bedelayeen tusaale ahaan tan 2021 Real Madrid iyo Barcelona ugu yaraan 17 macallin baa imaaday ka tagay yani marka la eego 17 tababar isku bedeleen labadan kooxood halka Atletico Madrid kaliya hal macallin ay haystaan waa Diego Simeone ninkan way aaminsan ka war macallimiinta ugu bisharaadka badan dunida ayuu ku jiraa ninkan number 1 baan ku ogaa maray taas waa taa Africa Nation baa ka dhacay sanadka kan waa tii finalka xataa garoonka laga baxay madaxweynaha FIFA yaabay inkastoo Senegal ay ku guuleysteen kaasoo xalay xitaa maani xidig u fiican ciyaarta la sii isbuuc ka horna uu ku soo guuleystay koobka Africa Cristiano xalay isla ciyaarayeen saaxiib isku dhaweeyeen kaasna waayay xalay ku dhawaaday goolkiisii 961 ku dhawaaday waayihiisa laakiin birta ka qabtay geeska ka maray argol si loo jecleeyay balsi madax loo qabsanaa bal fiiri Africa daan ku soo laabana marka sanadkan wuxuu leeyahay Thierry Henry dhammaan garsoorayaashii qabanay uu leeyahay runtii ciyaar Africa Nation heerkooda aad buu hooseeyay uu leeyahay runtii garsoorayaal ciidamada maan u hayn buru waxa ay muru garsoorayaal aad u qaladaad badan bay hayn buu leeyahay marka garsoorayaashu aad damalan buu leeyahay CAF ayaa aad daru leeyahay runtii heerka garsoorayaasha ciyaaraha u dhiibayaan ay liiteen finalki waa la arkay runtii in garsoore xilligaas penalty uu dhigay kuwii kale ka cariisay ciyaarta laga baxay keentay wuxuu leeyahay kullu fiican digeel CAF ayaa qalad ku leeyahay runtii CAF wuxuu kaga digay inay dunida la horgeyso garsoorayaal weyn la yimaadaan waka marka adeeg kulli fiican digeel xilli garsoorka Soomaaliya oo ahaa ninkii Afrika ugu fiicnaa sanadka loo doortay hal ciyaar kaliya ugu yaraan loo dhiibay ciyaari ugu miisanaaba aan loo dhiibin halka damaanta Edwin loo soo jeedinay CAF leeyahay runtii sanadka kan garsoorka Afrika waa liitay alla leeyahay runtii sida Thierry Henry baa qaba taas waa taa
cunugii Enrique ahaa aad buu ugu wacdareynay waa 9 ugu dambeeyay hadrig buu already ka dhaliyay horyaalka Faransiiska 2 ciyaaroodba Messina uu wali ka dhalin horyaalka Faransiiska ku dhawaad 70 ciyaar ku dhow 68 meelaha uu hadrig ka dhalin wareega waxa bakay ninka hadda xataa qayb ka noqday ciyaarada taariikhda hadrig ka dhaliyay horyaalka Faransiiska uu qayb ka noqday hore waxa uu sameeyay Mbappé isagoo 8 sano jira Ousmane Dembélé ayaa isna sameeyay isagoo Rennes ka tirsan 8 sano jira kana 8 sano jira buu mid ku sameeyay cunugan xawaara buu ku soconayaa waliba Sacuud damay waxaan arkay already war cunuga dhalis la kaliya ma hadrig hore kama dhalin xataa war cunuga xataa gamiska ugu badan buu dhameystir sisakan oo ka badan xataa Ousmane Dembélé kali 2 ciyaar buu ciyaaray Ousmane Dembélé reer gamis aha ama la saaro macna wara cunug Real Madrid ciyaaryahan cunugan wara Madrid Mbappé kala saambay ku heshaba kan loo noolaan karo cunugan muxuu naaqsan leedin war cunugan awood buu isku ogaa mid kale wax weeyaan Forest waxa la sheegay inay qarku saaranta qaadashada Matata inkastoo wali Blaise aynu fasaxin ciyaartooyga laakiin iyaga hadda raba Blaise waxa ka dhaawacmay Wood inta kana season kan maalid ciyaartooyga Napoli ka soo qaatay haddana weerar kale rabaan 3 milyan dollar bay direen lagama aqbalin Matata wala 8 sano jira sidoo milyan heshiiskiisa ugu harsan kooxdu wuxuu waan baxaya Matata new challenge buu rabaa wuxuu rabaa inuu dibadda aado حتى مدي دانيال بريمير ليج سي جوي مانتوس استون فيلا كوخ kala doondoonaya marka Matata Forest inuu qabtaa laga yaabay xageeda sanadii 1996 Seville ayuu ku beeray kadib waa ka tagay Madrid buu tagay adduunyo soo jabsaday wax badan buu soo qabsaday Ramos lawala saddex hadana kooxdii buu dib ugu laabtay wax yar uu joogay iminkuna uu ku laabtay isoo qayb ka noqonaya madaxda kooxda oo wuxuu qayb ka noqonaya ragga wax ka iibsi ka leh kooxda kubadda Seville Sheryl Dardu qayb ka noqonaya marka ninkan kooxdiisii hore ayuu hadda maamul ka noqon doona Seville saacad ugu dambeeyay Ramos baad loo hadalay dunida oo Sevilla dib ugu laabtay markan isagoo maamulka kooxda kamid ah oo wax ka yeeshay awoodda kooxda taayo taasna waa tan kulmo waanina wuxuu Juventus baa dib u doonaysa inay ninkan u wacdaan markii Nazir heshiiskiisii uu burburay waxyaabo badan kooxda kubadda cagta Atalanta isbuucan wuxuu lagu sameeyay taageero Ingiriis ah ayaa toddobaadkan albaabkooda marka la galay garoonkooda ku yaala magaalada Bergamo marka la galayo wax weeyaan baaswar baa lagu galaa goobta ciyaartooyga baskooda ka galo taageerahan wuxuu ka galay meeshii ciyaartooyga ka galayeen ayuu ka galay maxay wuxuu qiyaasay baaswarka albaabka ka lagu maro waka arkaysaan yani wuxuu qiyaasay Atlanta in la asaasay 1907 soo taageeraha kan wuxuu qiyaasay oo waxay noqon kartaa 1907 in xataa baaswarka ka dhigaan waxa la arkaa ninkan oo TikTok isaga duub muuqaal ka duubay baraha bulshada soo gelinaya uu leeyahay waree Atlanta iska soo adkay baaswarka ninkan soo lacag dhiibin oo waxba yani la cazumi ciyaar dalqaskii garoonkii faaruq uu galay isaga baashaalay dad badan aad mid ugu xanaaqeen waxay ku tilmaameen sharci daro Talyaaniga mid yani qofka midaan oo kala sameey wuxuu ku mutaystaa guulay runtii 3 sano xabsiya hatta hadii baaswarku easy yahay sharcigu wuxuu yahay hadii goobtu ay baaswar in lagu gala ay tahay oo aan lagu cazumin wixii kala oo meesha ku gasho waa tuuganimo umba waxa la Atlanta baaswarku adii ka jilcan yahay iska adkeeya war saxaabtana